madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku sii jeeda magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar sida ay sheegayaan warar lagu kalsoonaan karo oo laga helayo Villa Soomaaliya. madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka Masar Cabdifitaax Al-Siisi iyagoona wada hadallo looga hadlayo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya dowladda Masar iyo Soomaaliya ku yeelan doona magaalada Qaahira. wararka ayaa intaasi ku sii daraya in madaxweynaha Xasan Sheekh iyo Cabdifitaax Al-Siisi ay sidoo kale ka arinsan doonaan arrimaha ganacsiga, iskaashiga labada dal iyo arrimaha ku saabsan xaaladda gobolka. booqashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee Masar ayaa noqon doona kii toddobaad ee uu dibadda ugu aado tan iyo markii la doortay 15 May kadib safaradii Imaaraadka Carabta, Turkiga, Eritrea, Kenya, Djibouti iyo Tanzania. Masar ayaa ka mid ahayd dalalkii ugu horeeyay ee casuumaad u soo dira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loo doortay, iyaga oo la rumaysan yahay in Qaahira ay guushii Xasan Sheekh u aragtay faa'iido weyn. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho iyagoo ka yimid magaalada Arusha ee dalka Tanzania, halkaas oo uu ka qayb galay shirka dalada bulshada bariga Afrika ee EAC. Absaaq Cabdi Ibraahim, M24 TV, Muqdisho.